jimco wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba wararkeena maanta oo jimcaha 29 Janaayo 2021 wararka xuda ugu waaweyn saaxiibayaal waxaa qayb ka Cabdirashiid Jaran oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah dawladda uguna baaqay dadka ku nool degmada Balad Xaabo inay iskaga barakacaan magaalada dawladda federaalka oo sheegtay in lumisay kalsoonida ay ku qabtay ciidanka Kenya ee qaybta ka amisom si hoosana u dalbatay in laga saaro ciidankaasi wadooyinka Muqdisho oo xiran iyo barnaamijyo waaweyn oo lagu taageeray madaxweyne Farmaajo caasimada ka dhacaya dalab xasaasi ah dawladda Soomaaliya u dirtay igaad kadib warbixintii guddiga xaqiiqa raadinta qarax ka dhacay wada uu mara madaxweyne Farmaajo iyo go'aan degdeg ah durba la soo saaray maxaa ka soo kordhay baaritaanka kiiska dilka gudoomiyaha degmada Hodan iyo Ethiopia oo gacanta ku dhigtay hogaamiyaal Tigray ka tirsan kuwana xabsiga loo dhaadhiciyay qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambareelkana taabo si kugu soo dhacaan warbixinada wararka iyo xogaha gaarka ee halkan aan ku baahino markale soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilaabay Cabdirashiid Jaran ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah dawladda Soomaaliya uguna baaqay dadka shacabka inay iskaga baxaan magaalada Balad Xaabo ee gobolka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Jubbaland ayaa si kulul kaga hadlay xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Balad Xaabo ee gobolka Soomaaliya iyagoo halkaas ay ka dhaceen dagaallo isniintan ka soo gudmino dhaxay ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Jaran iyo xildhibaano ka tirsan maamulkaasi ee kala soo jeeda gobolkaasi dhanka Jubbaland ka tirsan saraakiisha ciidamada daraawiishta ayaa iskuulan isugu yimid magaalada Mandheera waxay kaga hadleen xaaladda ka soo kortay gobolka dagaalada isniintii ka dhacay Balad Xaabo iyo wararkii ugu dambeeyay Cabdirashiid Jaran ayaa ku dhawaajiyay in ay duulaan culus ay ku qaadi doonaan Balad Xaabo isla markaana ay qaadi doonaan dagaalka madambeysa Jaran waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ciidamada dawladda ay ku sugan magaalada Balad Xaabo wuxuu shacabka deegaanka ugu baaqay inay iskaga baxaan magaalada si aysan dhibaato u soo gaarin wasiirka wuxuu aadan u soo jeediyay madaxweynaha waqtigiisa si dhamaanayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ku eedeeyay inuu hurinayo dhibaatada ka jirta magaalada Balad Xaabo waxaa dhawaan ka dhacay dagaal culus oo saacado badan qaatay una dhaxiyay ciidamada dawladda iyo ciidamada hogaaminaya wasiirka amniga maamulkaas Jubbaland Cabdirashiid Cabdi Nuur Jaran dawladda Soomaaliya waxay dagaalkaasi ku eedeysay inay soo abaabusho dawladda Kenya balse Kenya jawaab maysan ka bixin eedeynta dawladda ila madax banaan ayaa sheegaysa in Kenya ay taageero siinayso ciidamada Cabdirashiid Jaran wasiirka amniga ee maamulkaasi Jubbaland ayaa hadda ku hanjabay in dagaal culus ay ku soo qaadi doonaan magaalada dadka ku nool Balad Xaabo ugu digay inay iskaga barakacaan magaalada si aysan dhibaato kaga soo gaarin dagaalada culus ay doonayaan in mar kale ay ku soo qaadaan magaalada Balad Xaabo ee gobolkaasi Gado dhinaca kalena dawladda federaalka Soomaaliya si cad u sheegtay inay lumisay kalsoonidii ay ku qabtay ciidanka amisom gaar ahaan kuwa Kenya ee amisom qaybta ka dawladda ayaana si hoose u dalbatay in ciidamada Kenya guud ahaanba laga saaro gudaha dalka maadaama aysan kalsooni buuxda ku qabin shaqada ay dalka ka hayaan dawladda Soomaaliya shaaca ka qaaday inay lumisay kalsoonidii ay ku qabtay ciidamada KDF ee Kenya ee awoodda waa Kenya oo aan awoodin taageerada iyo waliba xasiloonida Soomaaliya ay doonayso in lagu xaqiijiyo dalka arintan iyo dawladdu shaaca ka qaaday qoraal ka soo baxay dawladda gaar wasaaradda arrimaha dibadda oo ay warbixintani bixisay dawladda kadib markii guddiga xaqiiqa raadinta igaad ay soo saareen warbixin ku saabsan xaaladda xuduudda Kenya iyo Soomaaliya go'aankaas oo dawladda Soomaaliya u cuntami waayay qoraalka dawladda ayaa waxaa lagu shaaciyay in ciidamada Kenya aysan kalsooni buuxa ka haysan dawladda Soomaaliya oo aan lagu kalsoonaan karin hawsha ay dalka ay ka hayaan Soomaaliya ayaa ku eedeysay dawladda Kenya inay joogitaankooda Soomaaliya ay ugu faa'iideysanayaan aragtida qalafsan iyo waliba siyaasadaha qaranka uu diidan yahay ayaa lagu yiri qoraalka dawladda haddii aan si fudud u dhigno ciidamada KDF ma taageeri karaan xasiloonida Soomaaliya ayagoo dhanka kalena hurinaya xasilooni darrada Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale si xooggan u cambaareysay faragelin toos oo Kenya ay ku hayso siyaasadda iyadoo taageeraysa maleeshiya sharci darro ah oo argagax gelinaysa dadka shacabka ayaa lagu yiri qoraalka inkastoo dawladda Soomaaliya ay si toos ah u dalban ciidamada Kenya inay ka baxaan dalka haddana qoraalka waxa uu noqonayaa kii ugu adkaa ee dhanka
joogitaankooda ciidamada Kenya ee Soomaaliya ay dowladda ka soo yeeraan. Dowladda Soomaaliya hore u shaacisay inay fashilmeen qorshe badan oo dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku maamusho qaybo ka mid ah Soomaaliya markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay qabsadeen gobolkaasi Gado oo ciidamada Cabdirashiid Janan taageero ka helay kuwa Kenyana laga saaray. Dowladda federaalka ayaa Kenya markan u aragta cadawga ugu weyn ee Soomaaliya marka loo eego. dowladda federaalka Soomaaliya dalab xasaasi ayay u dirtay urur goboleedka IGAD kadib warbixintii guddiga xaqiiqo raadinta ee urur goboleedka IGAD ay soo saareen. dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqday urur goboleedka IGAD inuu baabiyo warbixintii ay soo gudbiyeen guddiga xaqiiqo raadinta ee urur goboleedka IGAD ee loo xilsaaray xuduudda la wadaagan Kenya iyo Soomaaliya, ayagoo sheegtay in warbixintaas ay tahay mid meel ka dhac ku ah Soomaaliya. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay dhowr qodob oo muujinaya in guddiga reer Jabuuti uu ka eexday Soomaaliya una eexday Kenya sida dowladda Soomaaliya ay rumaysan tahay. waxaana qodobadaasi ka mid ah in wasaaraddu ay sheegtay tan iyo markii guddigaasi howsha loo dhibay 9kii bishii Janaayo dhowr mar oo hore oo isxigta booqasho ku tagay wadankaasi Kenya, Soomaaliyana hal mar oo kaliya ay yimaadeen, taas oo sheegay in kalsoonida ama dhexdhexaadnimadii ay lumiyeen. guddigu wuxuu sidoo kale warbixintiisa qiray in lagu qaaday diyaarado helicopter ciidamada Kenya xilligii guddiga ay ku jireen shaqada xaqiiqo raadinta oo la xiriirtay in ciidamada Kenya ee la soo dhaaway xuduudda si u soo arkaan. taa waxaa qiraya ama taas oo qarashaad iyo waliba sidoo kale dhaqaale lagu bixiyo guddigana ay ka eexdeen, isla markaana Soomaaliya waxay sheegtay inaysan dhexdhexaad ka ahayn dowladda Jabuuti oo dhinac ka mid ay la safatay. dowladda Soomaaliya sheegtay markii guddiga la doonayay inay tagaan magaalooyinka Beled Xaabo iyo Mandheera si ay u soo qiimeeyaan, ay sheegtay in dowladda Kenya ay sameysay diyaarado helicopter ay ku daabusho ciidamada oo laga qaaday aagaas oo dhan sida lagu xusay qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in guddiga ay diideen in ay weyliyaan wafdi wasiirada xukuumadda Soomaaliya booqashada ay ku tageen Beled Xaabo, taa oo ay xigtay dagaalkii xuduudda ka dhacay 25kii bishan. diidmada ay diideen guddiga wasiiro ka mid ah xukuumadda inay raacaan ayay Soomaaliya sheegtay inay tahay arrin kale oo tuhun gelin karta sida dowladda Soomaaliya qoraalkeeda ay ku sheegtay. ciidanka weerarka soo qaaday waxaa tababaray siinayay ciidamada KDF ee Kenya, waxaana si toos ah TV-ga Kenya ama dowladdu ay leedahay xaqiijiyay. xildhibaano laga soo doorta ismaamulka Soomaalida ayaa sidoo kale xaqiijiyay in taageero military dowladda Kenya ay siinaysay ciidamada Cabdirashiid Janan ayaa lagu jiray qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. sidaas darteed la yaab ma lahan in natiijada howlgalka xaqiiqo raadinta ee guddigu ay noqdaan kuwa hal dhinac u janjeera oo aysan sahlanayn dhexdhexaadnimadooda. waxayna muujiyeen inay aad kaga careysan yihiin dowladda Kenya inay la safato Jabuuti sida lagu yiri qoraalka. wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in warbixinta guddiga ay si weyn u dhaawacayso dhexdhexaadnimada iyo maqaamka Jabuuti ee saaxiibtinimada ay la leedahay Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa sidaas darteed ugu baaqday IGAD in warbixinta guddiga la baabiyo, isla markaana IGAD uu soo diro guddi kale oo xaqiiqo raadin ah oo dhowr dal ka kooban. haddii aanay IGAD sidaas sameyn, Soomaaliya waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay xuquuqdeeda raadsato, diblomaasiyadeedana ay kala laabato IGAD. midowga Afrikana ama golaha ammaanka qaramada midoobay ay u gudbiso dhibaatooyinka halkaas ka jira sida lagu xusay qoraalka dowladda ka soo baxay oo ka koobnaa ilaa 15 qodob. qaybaha dambe ee wararkeena soo gaarnay daawadayaal, wadooyinka caasimadda ayaa xiran, welina banaanbaxyo ayaa xoogan ayaa magaalada Muqdisho ka soconaya. banaanbaxyada ayaana u muuqanaya kuwa lagu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii madaxweynuhu oo saxiixay 13 kursi ee matalaada gobolka Banaadir ay ku yeelanayaan. banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ayaa maanta ka soconaya magaalada Muqdisho markii madaxweynuhu saxiixay 13 kursi ee matalaada aqalka sare ee dalka. inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa la xiray iyadoo banaanbaxayaashuna si weyn banaanbaxay u dhigayaan goobo cayiman oo loogu talagalay in dadku isugu yimaadaan. banaanbaxa oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka Banaadir ayaa tan iyo xalay waxaa la qabanqaabinayay banaanbaxa iyadoo la filayay in maanta uu ka dhaco daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, xildhibaano iyo xubno kale oo dowladda Soomaaliya la filayay in goobta ay ka jeediyaan khudbado ku aadan
waxyaabaha la xiriira dadaalada dowladda federaalka ay weliba arinta madaxweynaha ay ku saxiixay 13 senatar ee matalaada gobolka banaadir ayaa shalay ansixiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. banaanbax ayaana la sheegay inuu soo abaabulay gudoomiyaha gobolka banaadir oo halkaasi dadka kula hadlay. maxaa ka soo kordhay baaritaanka kiiska dilka ee gudoomiyaha degmada Hodan oo xubno loo xil saaray? dowladda Soomaaliya ayaa guddi oo hogaaminaya xeeraalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule Kamey u xil saartay baaritaanka kiiska gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka banaadir Cabdixakiin Dhagajoon, iyadoo ay soo baxayeen warar hordhac ah oo arintaasi ku saabsan. xog uu helay channelkan ayaa sheegay in kiiskan oo gabagabo marayo isla markaana ay u badan tahay in la sii daayo taliyaha saldhigga Howlwadaag waa bari balse laga qaadi doono xilalka isla markaana ay suurtagal tahay in xitaa darajooyinka ay ku waayaan kaasoo amarkaas uu bixiyay saraakiil sarsare oo booliiska. wararku waxay sheegeen dowladda Soomaaliya ay rabto in diyo laga dhiibo dilka gudoomiyaha kadib markii xog baaritaano la sameeyay. falkana la sheegay in ilaa haddaan si ku talagala u dhicin laakiin uu ahaa mid si kama u dhacay sida ay noo sheegeen xubno xogogaal ah iyo weliba xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida eelada iyo weliba xubno kale ayaa arintani ka wada hadlay maadaama arintan oo shil dhacay oo aysan ku talagal toogasho loo dilin gudoomiyaha. waxaana laga yaabaa in beelaha iyo dhinacyada kaleba ku lugta lahaa kiiskan in diyo ay kala qaataan. ugu yaraan 7 askari iyo weliba saraakiil ayaana u xiran dilka gudoomiyaha degmada Hodan. qaraxyo ayaa ka dhaca wadada ku safra madaxweynaha Soomaaliya. go'aan ayaana laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan mas'uuliyiinta dhanka amniga. madaxweyne Farmaajo ayaa amar ku bixiyay maamulka garaashleyda ee ku yaala wadada la xiriirta wadada aada madaxtooyada gaar ahaan isgoyska Ceelgaabta ee degmada Xamar Jajab in laami la saaro oo la waayo meel la dhigo bambooyinka qarxa. wadadan oo ah wadada kaliya ee madaxweyne Farmaajo ku safra marka uu baxayo madaxtooyada, waana wado isku xirta madaxtooyada ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho oo markii ugu horeysay toddobaadkii hore qarax miino ka dhacday. tani markii uu dhacay qaraxaasi madaxweynaha Soomaaliya ma uusan ka soo bixin madaxtooyada, waxaana hadda soo kordhaya in laami la saaray wadada si ciriiriga iyo sidoo kale in la waayo waxyaabo qaraxyo lagu aaso. sababta ayaa lagu sheegay in laga foojignaanayo qaraxyo dambe dhulka la geliya oo halkaasi ka dhaca. ilaalada ammaanka madaxtooyada ayaana la sheegay inay kordhiyeen ilaalinta wadada madaxweynuhu ku safro magaalada Muqdisho. iyo dhowrkii toddobaadii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay qaraxyada miinooyinka oo badi ay sheegteen al-shabaab. warbixinadan ayaa ugu waaweynaa saaxiibayaal wararkeeni maanta waana gaytaas.